anigoo ah Suldaan Farxaan Xasan Saciid iminkana aan hor taagannahay madaxtooyada Burco halkaasoo madaxweynuhu ku qaabilayay beelaha Soomaaliland gudoomiyaha gobolka uu og yahay gobolkan Togdheer beelaha degan inaanu nahay beel kamid ah waxaana lagu sameeyay discrimination colonies oo ordaanta people ah waxa weeye waxa la yiri u gali meysaan madaxweynuhuna idin kulmi maayo ilaa iyo shalay iyo daraatona waan soo dhaweynay madaxweynaha Soomaaliland isaga waxa weeye ummadan qaranka Soomaaliland yaalo uu kala garanaya beelaha ay dhibaatada dhacaysa Soomaaliland taagan ee 24 saacadood ka dhacaysa waxa weeye waxay u dhacaysaa dulmiga lagu sameeyo haddii aanu nahay beelaha muslimiyo tumaalo madhibaan yibro waxa weeye dulmiga lagu sameeyo ayay mashaakilka iyo dhibaatadaas u dhacaysaa madaxweynuhu arkamaysan baa la yiri madaxweynuhu hadduu cadaalad hadduu sameeyo waxa weeye markuu beelaha la kulmayo beesha ugu horeysa mudnaanta siiyo ayaanu halahay oo oran lahaa u yeedha haddii taa la heli lahaa Soomaaliland dhibaataba kama dhacdeen halkaan iminka ka hadlaynaa waxa weeye madaxtooyadii Burco madaxweynaha hortiisii baan ka hadlaynaa waa naloo diiday gali meysaan baan la yiri waa naloo yeedho gali meysaan baan la yiri waxa weeye arrimahaas ayaa waxa weeye gobolkan haysta dhibaatadana haysata waa taa waxaanu leenahay haddaanu nahay beelaha muusodhariyo waxa weeye waxaan lagu hayaa waxa weeye cadaadin barakshar intaba waa lagu hayaa midabta koor intaba discrimination colonies baan lagu sameeyay